Assalaamu calaykum. Dowladeeda ayaa ay dirtay dalka Jarmalka si aan soo barto cilmiga makaanikada ee hagaajinta mashiinada. Sidaa waxaa yidhi aabihii warshadaha ee dalka Jabaan, Tokyo Zahiro. Ayaan kaga hadli doonaa barnaamijkeena maanta. Tokyo Zahiro waxa uu dhashay 5 July 1839. Waxa uu ku dhashay magaalada Edo ee dalka Jabaan. Isagoo qisadiisa ka waramaya wuxuu yidhi dowladeeda ayaa ay dirtay dalka Jarmalka si aan u soo barto cilmiga makaanikada. Halka ayaan tegay anigoo maskaxdayda ku haysta riyooyinkayga iyo gaarka ah, kuwaasoo marnaba ka faaruqay ruuxdayda iyo caqligayga. Waxaan ku hamiyey inaan mar uun gacantayda ku sameeyo mashiin. Sidoo kale Tokyo wuxuu yidhi waxaan ogaa in sanco kastaba ay leedahay wax saldhig iyo sir u ah, taasoo haddii aad fahanto aad samayn karto mid isaga la mid ah. Taasina waa taan habeen iyo maalin niyaddayda ku hayo. Markii aan jaamacadda galay waxaa la i siiyey kutub aan akhriyo, aniguse waxaan jeclaa in la i geeyo meesha shaybaadhka ee mashiinadu yaalaan. Kutubtii waan akhriyey, waxaanan fahmay wax badan oo ku saabsan makaanikada, laakiin si baraatiko ah uma fahmi karayn mashiinku sida uu u shaqeeyo. Sidoo kale waxaan aad u jeclaa inaan faraha mar uun la galo mashiinka oo aan furfuro barto waxa uu ka kooban yahay. Wax badanna waxaan ku hamiyey inaan u dhowaado wasakhdiisuna maryahayga gaadho. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan akhriyay ogeysiis ah in la qaban doono carwo lagu soo bandhigi doono mashiinada, taasoo ka dhici doonta dalka Talyaaniga. Waana bishii ugu horreysay ee jaamacadda galo. Waxaan markaa qaatay mushaharkaygii bishaas. Bandhigii ayaan tegay. Waxaan helay mashiin yar oo awooddiisu tahay 2 faras, qiimihiisuna u dhigma mushaharkayga oo dhan. Waxa aan go'aansaday inaan iibsado. Ugu dambeynna waan iibsaday, balse mashiinka aad ayuu u cuslaa. Farxaddayda awgeed culayskiisii ma dareemin ee dusha ayaan u ritay. Waxaan geeyey qolkayga, waxaanan duldhigay miiska dushiisa. Waxaan ogaaday mashiinkani ka kooban yahay waxyaabo fara badan oo kala duwan oo la isku geeyey. Haddii markaa inta aan furfuro kadibna aan dib isugu rakibo dariiqada isugu rakibnaayeen mid la mid ah oo aan dib u shido, waxay ka dhigan tahay inaan tallaabo muhiim ah hore u qaaday. Waxaan dib u baadhay maktabadda. Waxaan helay bug ay ku jiraan sawirrada mashiinku. Waxaan soo qaatay waraaqo fara badan iyo sanduuq aan dhex dhigto alaabta shaqada. Waxaan sawiray mashiinka. Kadib markii aan daboolka ka qaaday waxaan bilaabay inaan furfuro gobol. Mar kasta oo aan gobol furaba waxaan ku sawiraa warqadda, nambarna waan siiyaa ilaa aan dhammaantii furfuray. Kadibna waxaan bilaabay inaan dib u rakibo. Rakibaaddiisii markii aan dhammaystiray waan yara neefsaday oo waan aamusay, anigoo isweydiinaya talow ma shaqayn doonaa. Waan istaadhay, markaasuu sanqadhaadu fiican u istaadhmay. Waxaan maqlay xiinkii mashiinka. Farxad buu qalbigaygu la istaag gaadhay. Arrinkii waxaan u sheegay maamulkii waxbarashada ii soo diray. Aad iyo aad buu ugu farxay, wuxuuna yidhi wax fiican baad samaysay, waa inaan mar labaad ku imtixaanaa. Waxaan kuu keenayaa mashiin cadilan oo wax ka xumaadeen, markaa waa inaad furfurto oo aad soo saartaa meesha cillad kaga jirto, kadibna aad hagaajisa oo aad kaga shaqaysiisaa. Shaqadaas waxay igu qaadatay 10 maalmood. Waxaan ogaaday meeshuu khaladku ka jiro. 3 gobol oo ka mid ayaa dhammaaday oo duugoobay. Kuwa la mid ah xumaaday ayaan gacantayda ku sameeyey. Warkaa waxaa la gaadhay waqtiga aan shidi lahaa. Waxaa qalbigayga ku soo dhacaya su'aalo badan. Talow ma shaqayn doonaa? Waxay ahayd saacad aad u xasaasi ah oo aan warwar iyo walbahaar dareemayo, dhinaca kalena rajo fiican iyo guul dareemayo. Waan istaadhay. Waxaan maqlay codkii mashiinka. Intaa kadib maamulkii waxbarashada ayaa igu yidhi haddaba iminka waxaa lagaa rabaa inaad qaybaha mashiinka aad gacantaada ku samayso oo aad ka dhigto mashiin si aan u xaqiijiyo hadafkaaga qiimaha badan. Waxaan ku biiray qaybta lixaamada xadiidka. Ujeeddadii marka hore la ii soo diray ahayd inaan diyaariyo shahaadada PhD. Waxaanse ka doortay inaan galo qaybta dhalaalisa xadiidka oo aan xidho marya waxa lagu dhalaaliyo, kana amar qaato maamulaha dhalaaliyayaasha xadiidka, una hoggaansamo amaradiisa, si gaarana ugu adeego xataa wakhtiga uu wax cunayo. Tababarkaas waxa uu qaatay 8 sannadood oo aan shaqayn jiray maalinkii ugu yaraan inta u dhaxaysa 10 saacadood ilaa 15 saacadood. Marka aan shaqada maalinkii dhameeyay haddana waxaan aadi jiray habeenkii ilaalada xerada ugana faa'iidaysan jiray waqtigaas inaan dib u muraajaceeyo duruustayda. Muddadii uu ku jiray shaqada waxa uu sheegay maamulihii dhalaaliya
inuu ka tirsan yahay qoyska ugu sharafta badan Jabaan oo dhan, kuwaas oo la dhaho Zamuria. Markii dambe arrinkayga waxaa ogaaday Mikado oo ahaa boqorkii Jabaan. Waxa uu soo diray lacag gaadhaysa 5,000 oo ginni oo dahab ah. Lacagtaas oo aan ku iibsaday dhammaan qaybaha mishiinku ka kooban yahay oo dhan. Markii aan damcay inaan u raro mishiinka Jabaan ayaa lacagtii iga go'day. Waxaanse isticmaalay mushaharkayga wixii keedii ahaa oo dhan si aan qalabka ugu raro Jabaan u gaadhsiiyo, waanan sameeyay arrinkaa. Markii aan soo gaadhay magaalo ku taala Jabaan, Nagasaki, ayaa waxaa la ii sheegay inuu boqorku doonayo inuu arko. Waxaan ugu jawaabay, weli ma mutaysan in la arko ilaa aan rakibo warshad dhammaystiran oo soo saarta mashiinada. Taasina waxay igu qaadatay 9 sano oo shaqo istaba joog ah. Maalin maalmaha ka mid ayaan qaadnay aniga iyo shaqaalaha igu 10 mishiin oo gobol kasta oo ka mid Jabaan lagu dhex sameeyay. Waxaan u qaadnay gurigii boqorka oo aan dhignay daarad gooni ah oo annagana loo dhisay, taas oo dhow guriga boqorka. Markaasaan isku mar wada shidnay 10kii mishiinba. Kadibna boqorkii ayaa soo galay, wuuna na salaam qadarin iyo ixtiraam wadata aan la soo koobi karin. Markaasuu qoslay wuxuuna yidhi, tani waa codka heestii ugu fiicneed ee weligay dhegahaygu maqlaan. Waa codkii mishiinada Jabaan oo sooc ah. Waan helay sirta Yurub. Waxaan u soo rarnay Jabaan awooddii Yurub ayaan keennay Jabaan. Jabaanna Yurub u rarnay. Maalintaa taariikhiga ee dhacday arrinta mucjisada leh. Kadib waxaan tegay gurigaygii. Waxaan seexday 10 saacadood oo buuxda. Waana markii igu horeysay muddo 15 sano aan seexdo 10 saacadood isku xigta. Ugu dambeyn Tokyo waxa uu dhintay January 4, 1923. Fadlan dad muuqaalkan la dhamaystay like saar naguna soo biirsi ku soo gaadha muuqaalo sidan oo kale.